بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتنا dhegeysanaysa ay duhur wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka duhurnimo ee xulashada Daljir. waa 22 Sebtembar 2022 waxaan ay ku aadan tahay 26 Safar 1444 taariikhda hijriyada. qodobada barnaamijka maanta oo khamiis ah aad ku maqli doontaan xulashada waxaa kamid ah ismada gobolka Nugaal oo doonaya in golaha deegaan ee Garowe dib loogu doorto hanaankii qabiil. Puntland waxay sheegtay in golaha deegaan ee Garowe lagu dooran doono qof iyo cod bisha November ee sanadkan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay wadaa shirweyne la isugu keenayo beelaha Galmudug iyo Hirshabeelle oo looga hadlayo howlgallada. Balse waxa ka soo hormaraya warkii duhurnimo ee barnaamijka. Faadimo Degan Daahir ayaa ka soo jeedinaysa stuudiyaha Daljir ee Boosaaso. mahadsanid Sakariye. bismillaahi raxmaani raxiim. dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ka wada hadlay iskaashiga dagaalka ururka Al-Shabaab. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa magaalada New York kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Itoobiya. labada mas'uul ayaa kulanka dhex maray kaga wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin iskaashiga labada dal. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku sugan New York ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen dhigooda wadamada aan dariska nahay. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa ku soo badanaya waxyaabaha maanka dooriya. ciidamada booliska ee magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya oo si sharci darro ah looga ganacsanayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. goobaha lagu soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriya ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir. ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka ayaa wax aan suurtagal ahayn ku tilmaamay daandaansiga madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee dalka Ukraine iyadoo uu hogaamiyaha dalka Ruushku kor u sii qaaday xiisadda dagaal isla markaasina uu ku hanjabay inuu isticmaali doono hubka nukliyeerka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo hadal ka jeediyay kulanka guud ee sanadlaha ah ee qaramada midoobay ee ka socday magaalada New York ayaa khudbadiisa inta badan waxa uu uga hadlay cambaaraynta dalka Ruushka. xiisadii dagaal ee ugu weyneyd ayaa haatan ka taagan dalka Ukraine tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka bishii Febraayo 24keedii. warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada Daljirna waa iga inta aan dib idin kugu celiya qaybaha kale ee barnaamijka xulashada Daljir oo dhammaystiran iyo Sakariye. waa ay mahadsantahay Faadimo Degan Daahir oo warkii barnaamijka xulashada ka soo jeedinaysay stuudiyaheena Boosaaso. aynu guda galnay barnaamijkeena duhurnimo ee xulashada oo faahfaahsan. Suldaan Siciid Maxamed Garaase oo ka hadlay munaasabadda xil wareejinta ee uu kula wareegayay duqa cusub ee degmada Garowe Cabduqaadir Maxamed Geedi ayaa sheegay inay tahay in aan loo kala tegin oo nabadoonnada gobolka Nugaal ay soo xulaan xubnihii golaha deegaan ee bedeli lahaa kuwii dhawaan u kala diray madaxweyne Deni. qodobka kale waxay tahay adaka waxa la rabaa horta hal ogaada shacab weynow dowladda runta ah waa shacabka. nin kasta oo xil hayaana waa shaqaale. horumar nooc uu yahay toona laba diidana. qof waliba inuu codkiisa cabiro iyo caqligiisa oo meeshuu rabo uu doorto waa wax loo baahan yahay. laakiin waxaa la yidhi haddii gaajo jirto oo dadka neef loo qalo horta beerkaa la cunaa. horta waxaa la rabaa konsolkii la shaqayn lahaa maayarka cusub. cuqaashi waa fadhidaa, waxgaradkii waa fadhiyaan, dowladdii cid baa ka joogta, cid wixii ka quseeya. degmadu waxay qusaysaa shacabka meeshaa degan. waxa konsolka lagu tilmaamo innagu waynu ognahay wiil baa shaqala baa la geynayaa bale maya. dadka lacagta leh iyo tijaarta iyo xaajiyaasha iyo odayaasha oo weliba tooda ku sabooda baa laga dhigaa maayarka. qaynuunka internationalka ay waa oo xaq ah. konsolkii doorta si maayarka cusub waxa duulaa waxa la yiri ma diyaarada noqdeen ama hada noqdeen haday baal lahayn ma duulaan. Ahmed Barre wuxuu wax ku qabanayay Ilaahay falligi iyo konsolkii la shaqeynayo dad daacad ah oo hufan
oo isaga ay soo gol yihiin isaga iyo konsulkiisu waa in geedid konsulkiisii hadda waa joogtaa nabadoonnadu ayay kala tegin sidii loo qaybsan jiray waa in loo qaybsadaa haddii wax lagu daray waa in la isweydiiyaa ciddii dani ka qusayso xagga dowladda dhexoo dadka ka dhaxaysa iyaguna waa inay fududeeyaan hadalku waxaa la doonayaa waxa la cadku meeshu ka ceeriya dabka loo saaraa hadalka kiisa nuxurka ah baa la doonayaa in la aado dhankiisa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdiweli Mare Xirsi oo isna munaasabadda hadalka kaga dambeeyay Suldaan Garaase ayaa ku dhawaaqay in bisha November ee sanadkan ay Garowe ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaheedu ay ku soo dooran doonaan golihii deegaan ee iyaga matali lahaa dowladda Puntland waxay qaadatay oo madaxweynuhu iyo ku-xigeenkiisu hormuud u yihiin siyaasadda doorashooyinka golayaasha deegaanka saddex qodob oo la isku hayo oo la isdhexgeliyo hal kala saaro golayaasha deegaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanku iskuma xidhna haddii la yiraahdo golo deegaan baa la dooranayo cod baa lagu aadayaa kama dhigna in madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii baarlamaanka la dooranayo waxaa laga guurayaa qaabkii cuqaasha iyo odayaasha ay dhibka ku qabeen oo ilaahayeen hebel baa iga axatay dadkaasaa codkoodii la bandhigay waana soo aragnay degmada Ayl iyo Ufayn iyo Qardhay ka dhacday wanaagga iyo quruxda ka muuqatana waa aragnay shacabka reer Garowe waxaan ugu bishaaraynaynaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay diyaarisay dhammaan waxyaalihii necessary-ga ahaa ee degmooyinka looga baahnaa si loogu dareeri lahaa guddiga uu hogaamin lahaa doorashooyinku golayaasha deegaanka waxayna bilaami doontaa October nin walo oo doonaya golaha deegaanka Garowe in uu la soo xulo doorashada cod iyo qof u diyaar garow policy-ga iyo siyaasaddaas waa dhan tahay November-na in la aadaal rabaa golo kasta degmooyinkiina waa u diyaarsan yihiin shacabkana waxaan rabnaa inuu diyaar garoobo waana in ka aqbalay in Garowe hesho golo deegaan laakiin golaha deegaanka ay helayso waxa weeye mid lagu soo doortay qof iyo cod insha Allah ayna ku ducaysano waxaan kaloo rabnaa oo halkan ku soo ururinayaa halkan waxaan ku soo gaarnay dhaqan iyo siyaasad isbarkan oo aynu ku baraadnay oo aynu garanayno isimadeeni intii dhimatay Allah ha u naxariisto inta noolna ilaahay haraga iyo cimriga ha u barakeeyo inta jiifto xanuunsan oo garaasalamaan ka mid yahayna Allah ha caafiyo iyagana waxaynu kaga soo gudubnay waqti dheer waxaynu kaga soo gudubnay xumaan fara badan amniga Garowe ka jira ma yimaadeen haddaan cuqaasha iyo waxgaradka iyo isimada dhaqanka gobolka Nugaal haddayna garbaha haynin maalin kasta waxaa loo fadhiyaa dib ka dhacday ama dil ka dhacay ama dhac ka dhacay ama wax ka yimi bay xalinayaan iyana waxaan leenahay Allah isimadeena iyo dhaqankeena Allah barakeeyo ganacsatadeena deeqsiinta ee ku bixisay hantidooda danta guud iyagana waxaan leenahay hantida Allah inay barakeeyo waxaan ku soo ururinayaa oo shirka inoo ku xiraya iyadoo la guddoonsiinayo ilmaada Riyaalow Ahmad Barre wuxuu yiri asxaabigii Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay ayaa Abu Bakar bin Khattab wuxuu yiri nabigi ma dhiman Umar bin Khattab Umar baa yiri Abu Bakar radiyallahu anhu baa soo kaco nabigi buu tagay wajigu ka soo dhunkaday uu soo noqday aayadii quraanka ahayd uu ku akhriyay in uu rasuulku alayhi salaatu wasalaam qof kasta dhiman doono kullukum mayitun wa innakum mayitun oo dhiman doono sida awgeedna Ahmad Barre hadii uu ahaa meel qurxiyay Ahmad Barre waa tagay shaqooyinkiisii ganacsigiisii iyo shirkadiisii maxay ahayd iftin iyo neeg iyo meelihiisii uu aadaya waxay hawshu ag oolaysaa gudoomiyaha degmada gobolka Nugaal ahna haddii la soo doorto maan wafad lagu soo duqa golaha deegaanka noqon doona haddii uu de hunguri ka hayo weeye taas waa ambitionkiisa weeye taa lama fargelin karo waxaan ku soo ururinayaa waxa lagu wareejiyay quruxda badan maalinta ay timaado si qurux badan u wareeji waxaa jira nin aan xusayo halka ka xusayo kaliixeed ninka maxaa magaciisii Cawiif wuxuu ka mid ahaa dadkii deynta hore la wareejiyay oo
$26,000 oo ayaa gudoomiyahan kala wareegay shidaal uga qaatay gudoomiyuhu wuxuu yiri war maxaad iskaga siisay wuxuu yiri inay degmada Garowe xiranto iyo inaan lacagtayda waayo waxaan doortay inaan hantidayda waayo oo gudoomiyaha ay degmadu socoto ninka loo duceeyo Allah barakeeyo wuxuu hadda leeyahay oo gudoomiyuhu xusin oo hadda leeyahay $7,500 oo lacagtii Soomaaliga ay dhacday waxaan u soo jeedinaa gudoomiyaha xilka la wareegay ninka horena $26,000 lahaa maantana $7,500 waa wixiisa la siiyaa waayo qofka hantidiisa waxa weeye in mas'uulku intuu mas'uuliyad dawladeed kaga qaado uu siin waayo waa dhibaato weey kuwii hore ee deynta laga galayna waa la siin lahaye dee way istaba taxnaatay laakiin kan hadda uu taagan yahay intaas haddaba maxay ku kala duwan yihiin golihii deegaan ee habka qabiil ee odayaasha dhaqanku soo xuli jireen iyo kuwan dadku codkooda tooska u dooranayaan waxaan la hadlay oo aan weydiiyey wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland Axmed Saciid Nuur oo Garowe ku sugan bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waa maasantahay Sikriyo aniga waxay la tahay horta arrinkan golaha deegaanka in qabaa'ilka lagu soo xuno waa arrin lagu soo caanamaalay muddo badan la soo socday ilaa 2006 baa dadkaas maaragtay maalinba lagu soo xulaayay qaafkaas qabiilka iyo odayaasha soo xulaayay runtiina maaragtay waxaan qabaa lagu soo faa'iiday laakiin hadda maanta xilliga la joogo aniga waxaan qabaa dantu waxay ku jirtaa in loo gudbo barnaamij qofkii cod ayaan qabaa dantu inay ku jirto maxaa jira meeshii la joogay in la iska taagnaado waa laga fiican yahay waa fiican horumar la sameeyo haddii maaragtay dadku ay golayaasha deegaanka horumar lagu heli jiray oo laamiye lagu heli jiray barnaamijka qof iyo cod dadka lagu soo doorto waa ka sii fiicnaan doona oo wixii lagu heli jiray wax ka badan ayaa lagu helayaa marka anu sidaasaan u arkaa waxaan u arkaa dadku inay dadkan matalaya inay codkooda kusoo doortaan magarata maxay kula tahay sababta ismadu ay ku doorbidayaan in habkii hore ay lagu soo xulo mar kale golayaasha deegaanka walaal taas ma garan karo iyaga inaan weydiisay ku fiican tahay laakiin aniga waxaan qabaa ra'yigoodaas inuu noqday odayaal weeye ra'yigooda waa ixtiraamayna laakiin waxaan leenahay waxa weeye waa mahadsantihiin odayaale sidaas aan kusoo jirnay oo kusoo caanamaalay tanaan nooga fiican baan leenahay maanta qof iyo cod in lagu doorto golaha deegaanka ee soo socda Garowe maayirka cusubna shalay uu ballan qaaday dad badan oo maaragtay mujtamaca waa kula shaqayn doonaan insha Allah taala suurtagal ma tahay Axmed Saciid Nuurow in inta aragti kala duwanaantan isimada iyo wasaaradii arrimaha guduhu ay horseedo in ay doorashadu dib dhacdo taasina ay ku keento magaalada in golo la'aan ay ahaato oo mashaariicda qaybtood oo la yiraahdo UNJBLG baa kamid ah oo ku xiran in magaaladu ay golo deegaan leedahay in arrintaas ay magaalada ay saameyn ku yeelanayso horta barnaamijka qof iyo cod Garowe kaliya khaas uma aha Puntland buu ka dhacaya Garowe ka dhacaya Boosaaso ka dhacaya galkaayo ka dhacaya meel uu ka dhacaya marka wax Garowe goolo waa walaal ma jiraan barnaamijkan oo maaragtay hadduu hadda hirgalo waa barnaamij fiican oo dalka iyo dadka faa'iido u ah marka in la soo dhaweeyo uu mudan yahay anigu waxaan rajeynayaa haddii dawladdu waxyaalaha laga sugaayo ay soo qabato soo dhamaystirto dadku aad iyo aad ugu heelan yahay in barnaamijkaas hirgalo way daahirto waxba kuma dadno kuwa doorashada daahinahaya waa dawladii way daahirto waxba kuma dadno kuwa doorashada daahinahaya waa dawladii waxay doonayaan inuu qaranku dumo bay doonayaan waxay doonayaan dagaalkii xigtada bay doonayaan waxay doonayaan dalowga iyo qaxii bay doonayaan waxay doonayaan dayacaan ogeyn dib u noqoshadiisay doonayaan waxay doonayaan inuu qaranku dumo bay doonayaan waxay doonayaan dagaalkii xigtada bay doonayaan waxay doonayaan dalowga iyo qaxii bay doonayaan
waxay doonayaan dayacaan ogayn dib u noqoshadiisay doonayaan ummad yahay dareen siyaasadaha dedan iyo dabiinaaday daalin iyo tugu cadow soo dirtiyo dilaal iyo malaal ku daboolayaan dareenoo markaba u diyaar garow daafaca xorriyadda ummad yahay dareen siyaasadaha dedan iyo dabiinaaday daalin iyo tugu cadow soo dirtiyo dilaal iyo malaal ku daboolayaan dareenoo markaba u diyaar garow daafaca xorriyadda waa hagaag barnaamijkii xulashada daljir ayaad maqlaysaan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ku dhawaaqay inay qabanayaan dhawaan shirweyne ay isugu imaanayaan dhaqanka Galmudug iyo Hirshabeelle kaasi oo looga arinsanayo howlgallada ka socda maanta kulankeennan wuxuu la xiriiraa dhulkii waad ogtihiin waxa ka socda Galmudug iyo Hirshabeelle iyo South West iyo Jubbaland intaba iyo Puntland in ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo iyo kacdoomo bulshadii iyo dowladdii iskaashanaysa isaga xoreynayso ilmaha yararkaayo oo caasiyoobay dhaqdhaqaaqyadaasi marka waxaa jirta dadka meelo buundooyin buunda deebule wax la yidhaha buunda deebule odayaasha talyaaniga yaqaanee meelo dadku ka nugul yihiin oo ay ka taabtaan Galmudug marka maadaama hadda beelihii waxaa loo soo xulay dadka Galmudug degan beeluhu waa badan yihiin laakiin hadda deegaamada dib u xoreynta u baahan beelihii deganaa waay ama dhaqdhaqaaqyadu ay ka socdaan ama la gaari doono qaarna hadda la taagan yahay qaarna loo socdo bulshadaas cadaadis tiro badan ayay ku jirtaa cadaadis badan bay ku jirtaa cadaadiskaas marka laga dulqaado dadku grievances waxyaalo hore oo jiray ama dhul ha ku saabsanaadaan ama wax kale ha ku saabsanaadaan ayay la soo baxayaan arrintaasaa taladeedii odayaashu ay ka qaadan lahaayeen ay tahay dib u heshiisiinta iyo xasilinta odayaashu inay qayb ka ciyaaraan dabcan waa aragnay odayaashii oo dee hubkoodii watana waa la arkay xoreyntana qayb bay ka yihiin laakiin hadda kulankeenna wuxuu ku saabsan yahay in wixii soo bax inaan laga faa'iidaysan dadka oo la dhihin beesha cayr ciidamada ka soo dhaqaaqaya dhul Soomareeb markay ceel qoox la yimaadaan ama ceel la helay ama bulacle aan la dhihin qabiil kala socdo deegaankeena yimid amaba halkaas inta laga sii dhaqaaqo ceel buur la tago ama ceel buur inta laga tago ceel dheer la tago dadkiina looga faa'iideysan wayna ka faa'iideysanayaan nimankaas argixisada waana maqlayseen koodii u weynaa oo xalay laga qaylisiiyey wuxuu ku hadlayay wuxuu ku tilmaamayay dadka uu ceelashoodii dumiyey kuwa uu baabuurtii raashinka u waday uu gubay kuwa uu tuulooyinkeedu gubay ayuu wuxuu ku tilmaamayaa niman mooryaana iyo qudaaca turuq wax kufsaduu ku tilmaamaya arrintaas marka waaba weji cad bayba ahaydba wayba iska caddaydba arrintaas cali dheere warkiisii foosha xumaa waa ka muuqatay inuu niyad jabay inuuna u adkaysan waayo ciidamada
dadka iska xoreynaya deegaamadooda xoreysanaya dadkaas inuu adkeysan waayo wuxuu ku tilmaamayana waa muuqatay arrintaas marka odayaalo waxaan rabnaa kaalintiina wasaaradduna gacan bay idinka siinaysaa in odayaashu si hoose loo lafaguro arrimahaas inaana la kaga faa'iidaysan inaan maqalno kooxdii al-shabaab baa fiicnayd inaan dadka aysan laga maqal markay meesha joogeen bay fiicnaayeen markii dadkii iska xoreeyeen dowladdiina tagtayna isku dhacyaa yimid arrintaas waxa weeye runtii waa arrintaan hadda ka sii hordhacayno inaysan dhicin hadda arrintaas dadkeedii baa tiin dadkii beri xallin lahaa baa tiin inaysan dhicisayn arrintaasi gulufka hadda socda oo markuu soo dhaqaaqo meesha u dambeeya oo galmudug inuu tagaan rabnaa gulufkaasi waxaa hadda la bixinayaana dhiig waayo dadku dhiig bay bixinayaan ayagoo dhiig la bixinayo haddana inaan si xun loo fasirin oo la iska dulqaadayo nimankaas hadda macallinku uu sheegay nabadoonku uu sheegay deegaankiisii maanta ma tegi karo qof hadduu ka xanuunsado si looga soo saaro way adagta mashruuc horumarineed hadduu rabo si uga fuliyo way adagta isbitaal ama iskuul ama wax kale gurigiisa hadduu dhisanayo way adagta inuu guri damca xataa inuu ka dhisto beer hadduu damco inuu ka samaysto ama ceel hadduu damco inuu ka qodo dadka sidaasa oo noloshaas shacabkeennii waajib baa naga saaran xoreyntoodii maantana fursad baa jirta fursaddaa jirta waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno aysanna isku bedelin inna la kaga faa'iidaysto kooxahaasi nooga faa'iidaystaan sidaas si lamid a hirshabeelle odayaashoodaan u yeeraynaa south west baa loo yeerayaa waa soconaynaa ilaa jubbaland odayaasha jooga ma ahan arrin ku eg odayaasha galmudug keliya iyo deegaamadan galmudug laga xoreynayo dadkeedii baa teel ehel baa u tihiin arrintaas soo dhowaada waxaan rabnaa shir weyn oo dhici doona gobollada ka dhici doonana waa jiraa ama beled weyne ka dhici doona oo labadan state ay leeyihiin ama dhuusamareeb ka dhici doona go-aankeedii guddi baa loo saaray weli hadda nooma soo gudbin oo xildhibaano iyo isugu jira wasiiro waxaan rabnaa shirkaas weynna odayaashu inay tala ku yeeshaan oo guddi kooban odayaashaan iyo odayaasha kaleoo reer galmuduga inta la isku daro kuwo kaleoo reer hirshabeellena waa noo diyaarsan yihiin maalmaha soo socdaan arkaynaa shirweynahaas looga tashanayo sidii dadka iyo deegaanka looga dulqaadi lahaa kooxaha argagixisada shirweyne noocaasana waa noo soo socdaa asagana waxaan rabnaa buddiga odayaashu inay noqdaan oo madaxda dalka oo dhan ayaa dhex fadhiisanaysa shirkaas qabiilka markii la rabana waxaa weeye waa sidii la rabaa loo adeegsadaa oo xumaana laakiin hadda dowladdu dadkay ka timid dadkayna u shaqaysaa dadkayna ka koobanta ka xishoon mayno laga xishoon maayo in sida wanaagsan iyo xoreynta dalka inaan isku kaashanno arrintaas marka waa shir kale laakiin hadda midkaan u fadhinaa wuxuu yahay arrinta dib u heshiisiinta iyo xasilinta deegaamada la xoreynayo iyo inaysa kooxahaasi nooga adeegsan noo maaragtay naga faa'iidaysan inay dadkeenna isku diraan marka fariimo odayaasha kalaa ku xiran oo gudaha ku jira kuwa deegaamada xorta hadda joogaa jira isku xir inta la sameeyo inaan la isku xadgudbin ciidankuna siyaasad shaqo kuma leh dhul shaqo kuma leh waa soconaya laakiin wixii jira oo arrimaha oo soo baxa odayaashu inay dhabarka u ritaan waaye ujeedka kulankaani aad iyo aad baa u mahadsan sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ayaa wada shirar loogu gogol xarayo dib u heshiisiin ballaaran oo laga sameeyo gobollada dalka qaybtood ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo arrintaas ka hadlaya kadib markii uu ka qayb galay shir arrimahaas looga hadlayo oo Muqdisho ka dhacay hawshan baaxadda leh ee aad haysaan wasiir fiqi
iyo wasiir cabdixakiimba waa niman firfircooni iyo yididiilo iyo nolol badan ay ku jirto taasi waxay sababtay markiiba inay hawlihii loo igmaday isla markiiba wax ka qabtaan wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradaha ugu waaweyn ee dawladda federaalka iyo xukuumaddan dan qaran ee uu hogaamiyo prime minister xamse cabdi barre ay ka filanayso in waajibaadka waaweyn iyo ballanqaadyada waaweyn ee aanu geynay golaha baarlamaanka iyo himiladii madaxweynaha inay fuliso waa wasaaradda u igman arrimaha nabadda buddhigga u ah saldhigga u ah dhidibada u ah waa wasaaradda la rabo inay soo idlayso soo dhammaystirto arrimaha federalismka la xidhiidha waan ku faraxsanahay wasiirada inay halkan fadhiyaan oo ay ka warramayaan duruufaha iyo waayaha ka jira deegaanadii gacmo wada jir bay wax ku qabtaan waa wasaaradda la rabo inay wax ka qabato dib u heshiisiinta bulshada dhexdeeda run ahaantii aad baan wasiirka uga mahad celinayaa inuu ictiraafo labadii mas-uul ee halkan generaalka iyo guddoomiyihii hore haddana xildhibaana raggaasi wax badan bay u hureen inay magaalada gaalkacyo nabad noqoto wax badan oo guddoomiyuhu eheladiisii ugu dhoweyd iyo walaalihiibu in badan ku waayey sida aad ogtihiin nabaddu markaa qiimo yar ku iman mayso in fadhiid la ahaado meel la fadhiyo ku iman mayso odhaah iyo arrin la-aanna ku iman mayso wasiir markaa qofka aan qirin dadka kale waxay qabteen isna berri la qiri maayo doorkiisa arrintaas waan u mahad celinaynaa mas-uuliyadda iyagoo weliba garab badan aan helayn ayaamo fara badan bay halkaa usoo fadhiyeen iyaga iyo rag iyo hablo kaloo badan waan idin mahad celinaynaa taliyayaasha iyo mas-uuliyiinta kaleba walaalayaal waxaan rabaa bal inaan soo ururiyo qodobadii dhowrka ahaa ee la isla meel dhigay markay culimmadii hadashay haweenkii hadleen civil society-gii hadleen aqoon-yahanadii afyare iyo raggaas ay ka mid ahaa in arrimahan cilmi baadhista ku sameey ay hadleen iyo mas-uulka ka socda jubbaland agaasimaha kaamil oo xusay arrinta aasaaska ah waxaan la yidhaahdo poverty reduction afka frenchiga lagu yidhaahdo in haddaan saboolnimada lala dagaalamin nabad lama heli karo naftu qiimay ku yeelanaysa markaad waxhaysato marka kale laakiin waad iska waa kan wiilkii Soomaaliyeedba badaha isku qaadaya oo dooni aanad ku tagteen 10 kilomitir ilaa ay soranaya ku tagay Italy iyo mantaqaana Spain cirifyadeeda waxaynu wasiir isla qaadanay kulan weynaha de kulan mar hadii la galo waxba laga soo mantaqaana ururiya horta in nabadeyntu ay tahay hawl isku cufan oo raran oo qaybo badan leh oo aan ahayn hal shay oo la qabanayo inay noqoto nabad loo dhan yahay oo aragtida haweenka dhalinyarada dadka nugul barakacayaasha odayaasha cid walba aragtidoodu ay ka dhex muuqato aanay noqon nabad dibadda laga soo waariday waa run afyare markii uu hadraawi meelahan marayay ilaa burco ilaa iyo kismaayo ma gaadhay bas baydhabo ka soo noqday ilaa kismaayo tuulo walba dadku waa taagnaayeen oo waa sugayeen oo warkiisa dhegtay u raacayeen oo war ay fahmayeen buu ah laakiin haddii la yiraahdo in bagaadi cirifkeeda lagu shirinayaa civil society-ga dadkii fahmi maayaan waxa iyana xaqiiqo ah in economic foundations khayraadka dalkan yaala in dadku ay access u yeeshaan arrimahan waan isla meel dhignay shaqo la'aanta dhalinyarada haysata halis weyn weeye oo run ahaantii asaas u ah nabad darrada aqoontu wax badan bay ka reebtaa oo xun wax wanaagsan oo wax badan oo wanaagsan way ku faraysaa waxaan laakiin idinku bushaareynayaa marka horta wasaaradda doorkeeda aan ka baxay barnaamijyadii stabilization-ka iyada laga rabaa federalism-ka iyada laga rabaa nabadeynta iyada laga rabaa doorashooyinka iyada laga rabaa aad bay u rarantahay wasaaraddu marka macnaheedu waxa weeye gurmad badan bay u baahan tahay taageero u baahan tahay beesha caalamkuna oo ku mahadsan yihiin doorka ay ka qaataan waxaana hadda u sii raacda wasaaraddii gurmadka
iyo gargaarka qaabilsanayd waa la baabiiyey hay'ad baa la aasaasay gudoomiye halkan uu fadhiya waxay hoos timaadaa wasaaradda arrimaha gudaha waajibaadka u weyn ee ah in abaaraha loo gurmadana dee iyagay sugaysaa taana waanu ogsoonnahay si dhowna waanu wada shaqaynaa guddigaanu ku wada jirnaa wasiirka waxaan intaa kaga baxayaa markaa doorka wasaaradda wasiirkuna waa fahansan yahay idina waad ka dharagsantihiin wasiirada iyo mas-uuliyadda halkan fadhiya xukuumadda iyo inta ka sarraysana waa in hawshaa la qaado waanuna la wadnaa waxaa laakiin aan rabaa inaan ilan laba uun wuxuu yidhi warsaynu u ildarannahay uma alaliyin waxaa hubaala hadda dadka soomaaliyeed haddaad wasaaradda caafimaadka eegto barnaamijyo dhowr boqoloo milyana oo caafimaadka dadka nugu lagu gaadhsiinaya ayaa ka socda 10 sano ka hor 5 sano ka hor kharash intaa leeg caafimaadka lama gelin jirin waxaa hubaala wasaaradda waxbarashada haddaad eegto intaasoo boqol oo milyan baa waxbarasho lagu bixinaya wasaaradda biyaha dhowr boqol oo milyan baa lagu bixinaya in dadka biyo la gaadhsiiyo kalluumaysiga beeraha xoolaha horta waxaa soo dhamay waxay ku yimaadeen tacabka iyo dadaalka idinku aad samaynaysaan iskaashiga dawladda federaalka iyo gobollada ka dhaxeeya wada xaajoodkii laga galay deyn cafinta midhaheeda marba dawladda ka dambaysa ayaa sii maalaysa ogaada markaa waxaanoo sharro aad u fadhidaan ee shaqadan qabanaysaan wuxuun bay dadkii u dhalaysaa deyn cafinta markaynu gaadhnana kharashaadka la gelinaya adeegga bulshada dawladnimo waa adeeg wuu sii kordhaya markaa baltaanayaan loo daymo la'aan waxaan kaga baxayaa gabyaa weyn oo gabay xaddi la oran jiray baa wuxuu yidhi sow godobi surinkaad martaba walba waxaasay sababtaaduun maaha sow nabadi gogoshaada ood sidato un maaha yacni haddaad nabad haysato meeshaad doontaad seexanaysa gogolba xataa uma baahnin soomaali way ka dharagsan tahay colaad hadda waxay u ooman tahay waa nabad colaaddu waxay nagu hadhay intaaynu nimankaa iska bixinayno wixii intaa ka dambeeya tamarteenna iyo tayadeenna iyo awooddeenna beeraha iyo badaha ayaynu ula foofaynaa qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada daljir ayaan ku sii siqaynaaye haatanna xubintii sicirka iyo suuqyada xoolaha waxayna idinkaga imaanaysaa cabudwaaq ayaanle cabdulaahi jaamac ayaa halkaas istuudiyaha daljir ka soo jeedinaya dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imaanaysa istuudiyaha daljir ee magaalada caabudwaaq anigoo ah ayaanle cabdulaahi jaamac ayaan idiin soo jeedinaya aan ku bilaabay ee kiishka bariiska ah 50 kiilo maanta qiimihiisu magaalada caabudwaaq waa $32 kiishka burka ah waa $33 kiishka sonkorta ah waa $37 kartoonka baasada nooca loo yaqaana xilwa waa $11 caagada saliidda ah waa $7.5 caanaha waaweyn ee daasada nooca loo yaqaana xilwa waa $17 dhinaca qudaarta dhegaystayaal kiilada baradhada ah waa 70 senti kiilada basasha ah waa 60 senti kiilada yaanyo maroleyda waa $1.20 dhinaca shidaalka dhegaystayaal baasiinka taangigii waa $30 naaftada taangigii waa $24 gaaska cuntada nooc waa $41 halka nooca kalena uu yahay $30 iibka xoolaha geela qalliinka ah neefka ugu hilboon waa $600 dibaaxa ariga neefka ugu hilboon waa $60 neefka jarka ee weyn waa $70 halka neefka shaqiiqda ah ama raabaca loo yaqaano uu yahay $50 dhegaystayaal xubintii sicirka iyo suuqa waa naga intaas waxaan idinkaga imaanaysa istuudiyaha daljir ee magaalada caabudwaaq anigoo ah ayaanle cabdulaahi jaamac ayaa idiin soo jeedinayay guud ahaan kheyrtan dhegaysanaysa ee barnaamijkeenii duhurnimo ee xulashada daljir maanta waa naga intaas anigoo zakariya nuur faaraxa ayaa istuudiyaha daljir ee garowe ka soo jeedinayay maxamuud ayaa ii farsamaynayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo allahi ow raxmaanow adigaa raasiqoo jiree adigaa ra'iis boqorahoon ruuxna mudanayne adigaan rafaad iyo dhib iyo rabash ka yaabayne adigaan rafiiq iyo tol iyo rixim u baahnayne ray iyo adaan reer midnaba lagugu riixayne adigaa ka raafica khalqigan oo ka raalliyahe rajayntaada mooye wax kale ma laha raandhiishe wax kastoo aan rabnana adiga waa kuu raqiis fudude roob iyo allow nabadna sii raaxa waayage adigaa rasuul noo digtiya raawi soo diraye adigaa risaale iyo diin noogu soo raraye adigaa rumeeya oo na yidhi raaca weligiine adaa camal rasiid noo noqdiya raysta noo dhigaye adaa yidhi raqiib iyo catiid raatiboo qoree adigaa ridowgayga yidhi haw riyaaqine adigaa rabbi oo nafluhu kuu rukucayaane nimco lagu rakaatiya markaad rahanka soo saarto
waad khayrkan adigu noo rucdaan wada riyaaqnaaye ridlahaaga kama maaranniya ruun caleen badane roob iyo allow nabadna sii raaxa waayage adiga dhulka raar la seexdiya adaan nooga dhigay rooge adigaa rastaw yeela iyo raad aqoonsiyahe rawaasta iyo waxaa buur sidii rukumada u aasan webiyada rogmanaya waxaa bada ka reemaya dhirtoo raasamaaliya waxaa rawda iyo beera laba raafle iyo maal waxaa lagu dul raacaayo inta raas ku taaliya adigaa reeraha warae adigaa rasaaqdiiyo nacfiga noogu soo ridee naf kastaba adaa raadsan yidhi ruugmana u qoraye rudmo qura kolay tahay adigaa raashin bixiyaahe roob iyo allow nabadna sii raaxa waayage adigaa rakibay samadan oo riixay oo tugaye rukun iyo adigaa tiirla'aan meel ku raakibaye dabaylaha ka raac weliba raac daba ruclaynaayo cadceed roorto oo socoto oon abid rabaaxoonin dayax iyo xiddiga raxana oo wada ridaamaya rixaabtiiyo daruuraha nafluhu riijin kari waayey adigaa sidii rucbadii raaraxshoo suraye mid kastaba ragkaad saartay iyo rug iyo maamuuse ra'yigayga kuma koobi kara roonow amarkaaye roob iyo allow nabadna sii raaxa waayage colaad raagtay oo ribatay oo waartay colaad abaar baa geyiga reebtay oo riiqday noloshiiya colaad raagtay oo ribatay oo waartay abaar baa geyiga reebtay oo riiqday noloshiiya raran iyo kulayl baa rogiyo ruumad iyo boore raxmaddii alliya dhibicdii way ina ka raageene rays iyo qabow iyo lawaariyo xudgoon badane rismigaa naqaan waa indhuhu kuma rixaabtaane waa ramaali iyo sarab dhirtii rucubta weynayde ramaaska iyo cawskii ma baxo raaqubta ahaaye raayulcaamku suuraysan waa xaalka roogsadee roob iyo allow nabadna sii raaxa waayage rag iyo dumar rijaalliyo carruur raalliiyo hooyo rakuubba iyo geel ramada iyo raxanna duurjooga riyo raar iyo raafiyey midnaba kuma rixaabtaane rubuc baa ka haray xoolihii dunida raarnaaye raqdaa badatay ruunkii aan marraba waa rasoo kale rati iyo kolay riirba tahay ruqasho weeyaane way rubadgo'ayaan wixii ruux lahaan jiraye haddii aadan rawrabin adigu raysan mahayaane roob iyo allow nabadna sii raaxa waayage riciraha waxay naga jabshiyeen rugagiyo lowga ragaadkanana baday oo inaba rimixa noo diiday oo loo rafacay khayrkii oo loo rismiyi waayey rakuubbada colaaddaa markaan reemaha u qaadnay rasaas iyo qoryaha baasna aan raarta wada saarnay rabbi kuu jeclaa iyo markaan raahimada laynay waan xumaha lagu raagay iyo ribada doormoodnay ama aan ridiyi weynay baa raaf naloo qoraye hanna rogi sidii reer samuud amase reer caade allahayow nasii roob adigaan kuu rajoognaaye ma ogtahay macmil in akoonka sayfin akoon oo ka mid a akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo keliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga salaam